waxa uu mar qura bedelay dareenka malaayiin Soomaaliya oo shaashadaha ka daawanaya ciyaarta markuu dhaliyay goolkii barbaraha ciyaartii ka dhacday Harare National Stadium. goolkaas Cumar waxa uu noqday mid marnaba aan ka bixin qulubtiisa wuxuuna si weeyashan mar kale u matalo xulka xidigaha badweynta India ee ka qayb qaadanaya koobka bariga bartamaha Afrika ee Sakafa Senior Challenge Cup qadka telefoonka ee magaalada Columbus ee cariga wadankaasi Mareykanka ayaan kula xiriiray Cumar waxaana wax ka weydiiyay sidoo uu arko in qaranka Soomaaliya uu mar kale matalo iyo waliba diyaar garowgiisa koobka bariga bartamaha Afrika. waxa ugu dhiirigeliyay familkayga iyo asxaabteyda qaasatan hooyaday oo la dhalatay Ayub Jeenyo Allah oo naxariisto oo qaranka u saftay oo tababarna u ahaa waxaan ugu dhib badneed ma haysanin waqti aalmiitada iskula qabsano iyo guuldarada xanuunkeeda waxa igu weynaay taageerada shacabka Soomaaliya oo meel kasta joogan gudaha iyo dibadda heesta qaranka oo dareenkii kor u qaaday. sidee ugu diyaar garowday koobka bariga bartamaha Afrika ee Sakafa Senior Challenge Cup oo sanadkan Soomaaliya mar kale aad u matalayso? waxaa sameeyay diyaar garow fiican ilaahana garab gala. Ocean Star waxaa rajeynaynaa inaan ciyaar wanaag soo bandhigno iyo guulna waa rajeynaynaa insha Allah. fursad nuuca ayaad u haysataan inaad ka soo baxdaan groupka aad ku jirtaan oo idinku weeliyaan xulalka DR Congo, Sudan iyo sidoo kale South Sudan. fursadeena oo fiican yahay groupka Benonigeena hadda kor u soo kacay. maxaa dareentaa marka soo xasuusato marka aad dhaliso goolkaaga ugu horeeyay ee xulka Soomaaliya adigoo u matalaya israabkii koobka adduunka kulankii Zimbabwe? farxad oo la qiyaasi karin oo la ilmeeyay goolkaas mid la mid ah waligii ma dhalin. Ocean Star waxaa soo bandhigaynaa dadaal badan shacabkana waxaa ka sugaynaa taageero iyo duco. xulka Soomaaliya waxa isku groupiyeen xulalka Democratic Republic of Congo, Sudan iyo waliba South Sudan. tartankana waxa uu furmi doonaa 7 bisha December waxaana